السلام عليكم. جعلنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا رحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. Miyaaday dad badan baa yimid oo waa kaa iskuma weyn waxaas qaab laba in loo soo darsaday oday waa noqday anigu waaba iska haygii hore oo dhan waa iloobay waxaa la yidhaha waxaas hadda aan sheegahayana in la duubo de ma ahayn kitaabka xoogaa waa kitaab adag waana kitaab weyn waqtigiina waa la yidhayo waxaa la yidhi 2 maqrib keliya kitaabkii in wax lagana sheego kitaabkii dhammaado kitaab weyn uu yahay waxaad moodaa inuu aad u adag tahay sheegiddu ma badnaan doonto xoogaa caawa waxaan badnayn baanu sheegi doonaa laakiin kabacdi inuu iska dhaqaaqay yaa waxaa haddii la yidhaha ilaa waqtiga ma haysanin marka khayr badan allah noo furo qaala shaykhu bismi illaahi araxmaani araxiim qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد قال الشيخ شيخي وحوير الإمام إمام كها العالم عالم كها العلامة علم بدنها شمس الدين دين كقرة حديثها أبو عبد الله عبد الله أبيها محمدها بن قاسم محمد كإن قاسمها الشافعي محمد الشافعي بن قاسم الشافعي شافعي لو نسبيه وحو يري تغمده الله كقلي الله كأسطره برحمة رحمته سأل الله كقلي ورضوانه آمين الحمد لله ويري مقول قولك هل كاسو كدغ الشيخ marka sheekhu wuxuu yiri hadda qaalada ayaa wata warkan waxa dhahaya xirtii sheekha qaarkeed oo ay amaanayaan sheekh warka wata qaala shaykhu shaykhii wuxuu yidhi shaykha alimaam wuxuu ka hormariyey oo ad arkaysaan man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ilaahay khayr cadiima qofkuu la doono diintuu kasi siiyaa inoo imaan doontaa iyada lafteeda gadaal buu ka keeni doonaa marka waxaa la yidhaahdo bisinkiibuu sheikhu ku bilaabay basmaladaana shaarixaa wata basmaladii matniguna way imaan doontaa haddii alla yidhaahdo marka diibaajadan gogashan waxaa habboon qofkii dejinayay inuu basmalo 3aad la yimaado maxaa ila waa amar diibaala nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiiskiisu waa ku ah kullu amrin amar kulliga oo diibaalin xaalo u saaxiiba xaalo muhima arrin muhima macnaa sharaf leh oo laa yubda aan lagu bilaabin fiihi bismi illaahi araxmaani araxiim aan lagu bilaabin wahuwa abtaru ow ajdamu ow aqdacu taasuu yiraa layidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam 3daba waa isku mid gadaalbu iyada lafteeda ka soo celin doonaa marka basmaladan waa la sunneeyaa amar kasta oo xaalo u saaxiibaya xaalo loo murgood muhima leh in bisimka lagula yimaada baa la sunneeya xaaraamna way noqotaa mar lidaatihi makruuhun lidaatihi makruuhun licaaridan iyo warka lama sii wadwadi karin marka waxaa la yidhaahdo qofku khamrigoo kale markuu cabbahayo khamrada maxaa loo xarimay lil iskaari baa loo xarimay khamriga waalida ay waxwaalayso oo sakhraaminaysaa loo xarimay marka haddii waalidii laga waayo xalaal miyay noqonaysaa maya lidaatihi daata nimadkiisaa la xarimay ama wax waalisa ama yay waalid qofkii baa si u cabbahaya ama aan kuba waalanayn ama wuxuu cabbay baa wax yar ah oo aan lagu waalanayn xaraam wey xaraamu lidaatihi in bisinka lagula yimaada waa xaraam zinada oo kale waa muxaramu lidaatihi ayana oo maxaa loo xarimay sinada waxaa loo xarimay iyadana likhtilaa bil ansaabi nasabka isku darsankiisa nasabka dadka isku darsamaya haddii aan nasabkuba isku darsamayn oo islaantii baan dhalayn oo duq gabowday oo dhalmadii dhaaftay wey ama sagiire aan dhalayn miyay bannaan tahay ama macsuum qof ah oo nebi oo kalaha yidhi maba rimayso marka ma bannaana zina marna ma bannaana ama ha dhalayso ama yay dhalin oo nasabku inuu isku darsamaa loo diiday ilaa sida xoolaha haddii laysku dadku isu dhex galo waxay noqonaysaa xayawaankaasoo kale shaygii makruuhun lidaatihi ana waa karaahiyo daatadiisa shayga karaahiyada
zawjada farjigeeda shaksigu inuu dhowro oo ninkuu dhowro waa karaahiyo maxaa loo karaahaysta khawfa damsi indhala-aan ka cabsi haddii macsuum yidhaahda maba indhabeelaysid mayay marka la ogol yahay maya ama indhabeel ha imaanayo ama yuusan imaano macsuum baaba sheegay laakiin shaygii la xarimay oo caaridu loo xarimay biyo booliyuu ku weysaysanaya biyaha boolida maxaa loo xarimay alistilaa liajli listilaax xaqulghayr xaqulghayrka u qaalib noqday oo xoogay dad kale xuquuqdiisa yaa loo xarimay haddii taa la waayo oo u ibaaxeeyo iyada xaaraantii meesha waa ka baxaysa xillada marka waa caarid taas lama diidaya iyada xaaraan maa shayga makruuhu licaaridina bisinka waa loo qabanayaa isagana waxba dhib male haddii loo qabto oo basasha cunideedu waa karaahiyo maxaa loo karaahiystay lildhiidaa dadkay dhibaysaa dadku qofka cunaa basasha ceeriinka haddii la kariyo oo laga zuuliyo ciladii loo karaahiystay waxay ahayd dhibkii baa meesha ka baxaya taasna iyada labadaasba waa la sunneeyaa marna way waajibaysaa le aayad faatixada ka mida weeye annaga shaaficiyada marka allahuma salli calaa sayidina muxamed afarta axkaamtaa soo gelaysa oo mar waxay noqotay makruuhun muxaramun lidaatihi waxaa ku baxday muxaramun licaaridi iyo makruuhun lidaatihi shayga karaahiyada adaatanimadkiisa sida farjiga zawjadoo la dhowroo kale waa karaahiya waa laba marna waxay noqotay waxaa la yidhaahdo sunnay noqotoo amar diibaal oo dhan in loo qabto arrin muhimahoo dhan bisinka loo qabto saddex soo maaha muxaramun licaaridin oo maaulmaqsuub lagu weysaysto iyo makruuhun licaaridin waas labadaas iyo labadii horeo xaraamta ahayd midna karaahiyada midna xaraamta ah damaya labadan waxba iyaga la tirin maayo waa kuwaasay ku baxeen weye marka waxa la yidhaahdo amarkii dibaala waa sunna shayga xaaraam lidaati ahna waa xaraam shayga karaahiye lidaati ahna waa karaahiyo shayga waxa la yidhaahdo safaasiful umuur baa la yidhahdaa isagana looma qabto shayga mubaaxa iyo wixii shaaricu gadaal buu ka keeni doonayaana warka halkan kusii badani man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diini buu shiikhu shaarixa ahi yarkaan xertaan ammaanaysa taasay meesha soo geliyeen waxay u soo geliyeen qofku hadduu kitaab bilaabayo kitaabkaas wax ku fahamsiiya in qofku la yimaado waa sunnaha la yidhahda magaciisa inuu sheego kitaabkaas hadduu axkaam yahay hadda fiqhi yufaqihu fi diini baa lagu fahmaya hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday mid walbaba gogasha hore bilowgaasaa wax lala imaan xamdiga iyo markuu la imaanayo marka yufaqihu fi diini sheekh marka maxaa la dhahaa qaalo shaykhugu ilaa ku yiri sheikh waxaa la yidhaahdaa ninkii man jaawaza alarbaciin afartan ninkii dhaafay baa luqada lagu yidhahdaa carbeed ilaa qofka hooyada caloosheeda intuu ku jira jiniin baa la yidhahdaa wuxuu ku asturan yahay habarta caloosheeda markay hooyadu dhashana difli iyo durriyad iyo sabi iyaa la yidhahda markuu qaangaara shaab iyo fatan iyaa la yidhaahdaa markuu soddon dhaafo kahli baa la garmadow markuu afartan dhaafana ninkan shaykh baa la dhihin gabadhana shaykhad baa la dhihi laakiin istilaaxa shiikh maxaa la yidhaahdaa man balaga rutbata ahlilfadl dadkii ahlu fadliga martabadooda qofkii gaaray walow sabiyan ba ha noqdee kaasaa la yidhaahdaa sheikh xagga istilaaxa siday u yaqaaniin culammadu weye kow imaam baa kuu saaray qaalo shaykhu shaykhii wuxuu yidhi alimaamu buu ku yidhi imaamka oo imaamna maxaa luqada lagu yidhaahdaa almutabac midka la raacaa la yidhahda istilaaxana waxaa la yidhaahdaa man yasixu iqtidaa'u bih mid in lagu dayda ay ansaxayso allahuma salli calaa sayidina muxamed kaasaa la yidhaahdaa alcaalimu buu ku yidhi macnaa cilmiga ku sifoobay hal masaleba ha noqotee almutasif bilcilmi walow bimas'alatin waaxidatin buu ku yidhi ama kasab ahaan masaladaas ha u barto oo wuu kasbaday wuu bartay ama ilaahay baa ku shubayba iyadaan nina barin bidariiqi lfaydi ililaahiyi ilaahay baa ku shubay cilmiga laduniga la yidhaahdo weeye midaa tidhaahdaba qofkii ku cilmi leh masale keliyaba ha noqdee
caalim baa la yidhahda waayahay yaa soco hadda wuxuu ku yidhi alcalaamatu waa mubaalaga cilmi badanaha ahaa marka macnaheedu waxa weye kasiiru lcilmi shamsu diini diinka qorraxdiisa ahaa macnaa diinkii uu qorrax oo kale u yahay min xaysu iidaacu caddaynta xaggeeda uu cilmiga caddaynaya axkaamtiisa oo muxuu ku caddayn ama alifid u alifid sidaanoo kale uu ku caddayn ama sugid u sugo buu ku caddayn shaarixa laqabtiisaasaa la yidhahdaa naanaystiisa naanaysna maxaa la yidhaahdaa maa ashcara bimadxi waa wixii ammaan ku tusiya sida zaynuddiin iyo shahaarudiinkan oo kale ama cayb ku tusiya kaan fi naaqati sida sanhalaadloo kale sanhalaadlo marka waxaa la yidhaha sheikhii wuxuu yidhi shamsuddiini diinka qorraxdiisa ahaa abuu cabdillaahi cabdullaahi aabihi ah waa kunya tanin laqab iyo kunye iyo ismi baa kala jira ismigu waa magac caadi iska ah waan gaari doonaa laqabkana waxaa la yidhaha waa wixii ama ammaan ku tusinaya ama xumaan ku tusinaya oo ammaantii maxay noqotay waa shamsuddiinkan oo kale caydiina maxay noqotay waa anfunaaq oo kale sanhalaadi waxa la yidhaahdo muxammadun cabdullaahi markaa kunyaa kuu soo hartay kunya wixii awal looga dhigo ama aabe ama hooyo ama ibni ama bintu ama cam ama camu ama khaal ama khaalo maxaa la yidhi abu cabdullah hadda waa kan aabbaa loo hormar abu cabdullaahi baa loo hormariy abbaa loo hormariyey haye haddii la yidhaahdo cabdullaahi aabihi ama waxa la yidhaahdo umu cabdillaahi waad aragteen umu cabdullaahi waa kunya taasi laakiin naxwadu soo wada arkay muxammadun qaala shaykhu shiikhi wuxuu yidhi shamsuddiin ahaa abu cabdullaahi aabihi ahaa muxammadun muxamed ah muxamedkii ibnu qaasimin qaasim wiilkiisa ahaa oo laga sifeeyo waaya waa aabihii magaciisa haye ashaaficiyu shaafici loo nisbeeyey imaamka shaaficiha loo nisbeeyo wuxuu ahaa shiikhaani mid ku cibaadaysta madhabta imaamu shaafici shaafici baa la yidhaahdaa yaasoocaha taqamadahu llaahu ilaahay ha ku galeeyo oo kamarahu camahu ha ku camimo maxaa awal taqamudka la dhihi jiray seefta galka la geliyo allah ha ku galeeyo laakiin maanta maxaa looga jeedaa wixii ka laazimahaya seefta marka galka geliyo maxaa ka laazimay soo inay dhan walba ka martay galku maaha oo camimay ilaahay ha ku camimo biraxmati raxmaddiisa iyo wa ridwaanihi ridihiisa raxmadda ixsaankiisa haye mid kelmad kasta war buu sii daba dhigayaa baajuuralya wax ka war badani hoos ha u sii aadi aamiin ilaahu aqbalo shiikhaasi wuxuu yiruu ku yiri waxa warka dhahaya waa xirtii waxay ammaanayaan shiikhi warkiisii waa kanaa marka alxamdu lilaahi buu yiri ilaahay baa mahad u sugnaatay ilaahay baa mahad iska leh ammaan wanaagsan waa jumlo musta'nafaah tabarukan barakaysi aan barakaysanayo bifaatixati alkitaabi ilaahay baan mahadin tabarukan liajli tabarukin barakaysi aan barakaysanayo bifaatixati alkitaab kitaabka tan furfuraysa ilaahay wuxuu macnaha ku furfuray kitaabkiisa xamdiga oo kitaabka bisinna waa lagu bilaabay xamdina waa lagu bilaabay bilowgaa marka laba u qaybsamo mid waxaa la yidhaha ibtide xaqiiqiya midna waxaa la yidhaha ibtide idaafi ah xaqiiqiga waxaa la yidhahdaa maa waqaca amaama almaqsuudi walam yasbiqhu shayun wixii dhaca bilowga dhaca shayga maqsuudka intaan la gaarin maqsuudkii kitaabu dahaarati oo kale soo maaha wixii bilowga dhaca baa la yidhaahdaa wax ka hormaran ayaan jirin walam yasbiqhu shay idaafina waxaa la yidhaahdaa maa waqaca amaama almaqsuudi wain sabaqhu shayn waxbaha ka hormareen kaasaa la dhihi marka bisinkii iyo xamdigii labadaba xadiisku waa ku soo arooray wixii aan bisin lagu bilaabin waa abtar wixii aan xamdi lagu bilaabin waa abtar kolka waxaa lagu xambaaray kan xaqiiqiga waa midka oo bisinka lagu furfurtay qur-aanka waa kan lagu furfurtay marka wuxuu ku yidhi tabarukan barakaysi alxamdu mahad lilahi bay u sugnaatay tabarukan bifaatixati alkitaabi aan barakaysanayo kitaabka wuxuu ilaahay ku furfurtay aan barakaysanayo waa siiqada xamdiga oo waase idaafi ayadu
waa lagu furfurtay laakiin bisinkaa ka hormaray bisinkuna waa xaqiiqi bilowgiisu ayana idaafi ale markii loo fiirsho waxa kale ee ka horreysaa aan bisinka ahayn haye liannahaa maxay marka tabarruk u tahay oo loo barakaysanayaa dee liannahaa faatixatulkitaabku ibtidaa'u kulli amrin dii baalin amar xaalo u saaxiiba oo dhan xaalama muhima leh oo dhan ee bilow u tahay wa khaatimatu kulli ducaa'in duca la arko tii khatimaysa weeye khaatimadeeda weeyu waayahay wa aakhiru dacwa almu'miniina ducadoo mujaabin la aqbalo wa aakhiru dacwa almu'miniina mu'miniinta ducadooda tan ugu dambaysa weeye filjannati jannada figeedu maxaan ugu bilaabanayaa waxaan ugu bilaabayaa xamdiga waa faatixatu kulli kitaabin bifaatixati alkitaabi liannaha iyadoo ibtidaa'u kulli amrin amar kulligii bilowgiis weeye kan lagu bilaabo weye amarkoodii baali haye ibtidaa'u kulli wa khaatimatu kulli ducaa'in weeye wa aakhiru dacwa almu'miniin intaasay isla tahay marka amar diibaal oo dhan ibtidihiisa weeye maxaa looga jeedaa yacni amar allaale amarkii diibaala in bisinka lagu bilaabo baa la dalbay ama ibtiduu xaqiiqi ha noqdo haddaan wax ka hormarino waa bisinkoo kale ama idaafi ha noqdo waxba ha ka hormareen ilaa xadiiskaa wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bilxamdi lilaahi aan lagu bilaabin fa huwa abtaru oo aqdacu oo ajdamu macnihii oo dhanna waxaa weeye amarkaasi waa amar naaqisa xisigaba kaamil ha u ekaadee wax dhammaystiran ma aha waa yahay amarkoodii baalin xaalo u saaxiibuu ku yidhi loo murgo xagga sharciga oo waa inuu yahay amarka diibaalka ah waa inuusan muxaraman usan ahayn lidaati walaa makruuhanna waa inuusan ahayn walaa min safaasifi lumuuri umuurta muxaqaraadka ah waa inuusan ahayn marka wax la xaaqahayo muxaqaraad waa wax liita iyo taas loo qaban maayo bismi muxaramka iyo makruuha lidaatihaana loo qaban maayo waxaa lagu sii darin dikran maxdarna waa inuusan ahayn dikri khaalis ah dikriga khaaliska waa maxay astaqfirullah markaad leedahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah adkaartaas markaa akhriyaysa maxdiga ah iyadana bisin loo qaban maayo wixii ilaahay uga dhigay bilow waxaan bisin iyo xamdi ahaynna iyagana lala imaan maayo oo waa maxaa ka mid a salaadoo kale marka la bilaabayo allahu akbar baa la dhihi dee la dhihi mahayo iyada alxamdu lilaahi waxba lagu bilaabi maayo dikriga maxdigaana waa saas waxay sheegaan rumaga amar diibaala waaye amar diibaala markuu yahay isaga lalama imaan mahayaa le hadda kutubuhu aalaaba ma dhigaan xaashiyooyinkaas iyaa dhib maxaa loola imaan waaya isaga laftiisu dikrigu wuxuu rabaa rumay buu rabaa rumaguna waa amar diibaala oo wuxuu rabaa xamdi ama bisi buu rabaa kanina wuxuu rabaa dikrigii in rumay lala yimaado waa kaas isaga meesha waa laga saaraa marka wa khaatimatu kulli ducaa'in ducaa dhammaanteed ibtidaa'u kulli kitaabin weeye khaatimatu kulli ducaa'in duca dhammaanteed tii khatimaysa weeye oo see u khatimaysaa waxaa la dalbay oo la sunneeyaa ducada in lagu khatimo xamdiga in laguna bilaabo laguna khatimo saa darteed waxaa sunno ah wa an yubda'a ducaa wayakhtimuhu bilxamdi lilah xamdiga waxaa la mida nebiga salligiisa sala allahu alayh wasalam in laguna bilaabo laguna khatimo ilaa salliga nebigu waa aqbal baa lii ilaahay inuu labada dhinacba aqbalo oo kii hore iyo kan dambana aqbalo inta dhexdaana is aqbali waayo ilaahay kariim buu ka yihi ducadoo mujaabin la aqbaluu ku yiri macnaha la rajaynaya in la aqbalo weeye macnuhu aqbal adugu iskama lihide waxaa la rajayn in la aqbalo marka maxaa lagu aqbali bicayni maa dalab wixii uu dalbay qudhiisii in la siiyaa lagu aqbali aw bikhayrin mimaa dalab ama wixii uu rabay wax ka khayr badan baa lagu aqbalin oo la siin ima xaalan haddaa la siin aw ma'aalan dib dambaa la siin aw bithawaabi yaxsulu lidaaci ama midka ducaysanaya yaa ajar u xasilahaya oo useelaya ajar baa la siin aw yudfac canhu durun canhu ama dhib baa ilaahay kaga reebay
ducadii waa lagu aqbalin haddii shuruuddeeda la helo. shuruudda maxaa ka mid a waxaad ilaahay ka baryaysaa inuusan rixim jarid iyo xaaraam iyo ahayn, inaadan degdegsan oo aadan dhihin ilaahay waa baryo ima aqbalin. dee waxaa lagu yidhi wixii aad rabtay laftiisaa lagu siin, ama wixii wax ka khayr badan baa lagu siin, ama haddeeraa lagu siin, ama hadhow baa lagu siin. ilaahay suu doona yeelo weeye, isagaa og maslaxada waxay noogu jirto. dib buu u dhigay. nebiyaasha qaar baa inta la yidhi waa laydin aqbalay iyo 30 sano sugahayeen baa layidhi. laan annaga markiiba la waxayn lama aqbalin baa laleeyahy. ama thawaab baa la siin qofkii aakhira thawaab ahaa la siin, ama balaaya loogaba difaacin ducadii. intaas oo dhan udcuunii astajib lakum baa ilaahay waydan aqbalay. wa aakhiru dacwa almu'miniina, mu'miniinta ducadooda tan ugu dambaysa weye filjannati, jannada ay ku ducaystaan. oo markay wax dalbaan oo ishtaheeyaan waxay dhahayaan baa layidhi subxaanaka allaahuma wa bixamdika. soo xamdi lama imaan, ducadii bay u dambaysaa. ilaahay bay ammaanin markay saa yidhaahdaan wixii ay dalbayeen isagoo hortooda yaal oo xeerya saaran yay arkahayaan baa layidhi, yay helahayaan. kullu macidatin miilun fii miilin, hal mayl. now miil maba naqaan, soomaaligeen waa mayl mayl xag iyo xaggaba u ah yay waxa la yidhaahdo xeerya la yidhahdo. xeero la arka 70,000 safxatin, nuurtaasoo badan buu sii wadwadaay. wakaa wey marka wa aakhiru dacwa almu'miniina fi ljannati buu ku yidhi, daari thawaabi ahayd. marka aakhiru dacwa almu'miniina weeye fi ljannati, daari thawaabi, thawaabta daarta fi ljannati, jannada fiigeeda ay ku ducaystaan. daari thawaabi ay ku ducaystaan oo laga bedelo jannadii. thawaab baa loo idaafeeyey liannaha maxalhu weeye jannada. daari thawaabida waxaa loo yiri daartii iyo thawaabtii baa laysu idaafeeyey, waa maxalkii. walidaafatu min idaafati almaxalli lilxaali fiih, kii degay waxaasuu sii wadaayo wada cajaa'ibe warka yuusan ugu badanin. kas axmaduhu buu yidhi sheikhu, ilaahay baan mahadin an wafaqa liajli an wafaqa waafajintiisa dar